السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي waxaan wanaagsan daawadayaal waxaan rajeynaynaa fiicantii insha Allah inta kadib maanta waxaan ka hadli doonaa ambiyada Ilaahay ee Qur'aanka ka waramay qisaska ugu dhaadheer ambiyada Ilaahay mid kamid ah ee ku wariyay aan ka hadli doonaa insha Allah waa Nabiga Ciisa alayhi salaam. Ambiyada Ilaahay dhamaantood sida la socotaan waxay lahaayeen qoomam iyo dad loo diray marka laga reebo Nabiga Ciisa alayhi salaam oo aan wax qoom lahayn sida uu muujin doono insha Allah daliilada soo muuqda daliilada noo soo socda insha Allah sida muujin doona intaan galin ka hor marka daliiladaas marka waxaan rabaa ku soo bandhigo ambiyada Ilaahay iyo qoomamkii loo diray sida ay Quraanka u sheegayaan insha Allah ta'ala marka hore ka haqabtiri doonaan ku sheegi doonaa kadib ayaan insha Allah ta'ala u gali doonaa mawduucaas Nabiga adaan soo qaadana Nuh alayhi salaam Ilaahay asoo ka waramay wuxuu yiri walaqad arsalna nuuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha Nabiga Nuh alayhi salaam waxaan u dirnay qoomkiisuna wuxuu ku yiri qoomkaygii oo maad Ilaahi caabudan ayadaas wuxuu ku jirtaa hadii ay ku samadiidina suuratu Araf ayada 59aadna waaye waxaa la mid ah Nabiga Hud alayhi salaam oo la yiri ila aadin aqahum hudan qala ya qawmi ibudullaha oo idana isla suuratu Hud ku jirto oo ah ayada 50aad waxaa la mid ah Nabiga Salih alayhi salaam oo la yiri ila thamud aqahum salihan qala ya qawmi ibudullaha oo isla Hud ku jirto idana ko ilaa ayada ko 60aadna ka sidoo kale waxaa la mid ah Nabiga Lut alayhi salaam oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala Quraanka ka waramay oo qoom shida badan loo diray oo Lut qala li qawmihi atatuna fahishatan ma sabaqu biha min hada min al-alamin suuratu Araf ku jirto ayada 8aad sidoo kale ayada la mid ah Quraanka laga soo helay suuratul Qasas suuratul adila ku samadiidina namal laga soo helay ayadan ayad la mid ah sidaas oo kale waxaa reer bani Israa'iil loo diray sida Allah socotaan Nabiga Ciisa alayhi salaam reer bani Israa'iil baa loo diray intaan galin koor Nabiga Ciisa alayhi salaam reer bani Israa'iil waxaa loo diray Nabiga Muusa alayhi salaam balan soo qaadana asagana aayad oo Nabiga Muusa alayhi salaam ku leeyahay dadkiisa soo la hadlayo qoomkayga wad qala Muusa li qawmihi ya qawmi innakum dalamtum anfusakum wa suuratul baqara aayadaas sidoo kale Nabiga Ciisa alayhi salaam waxaa loo diray reer bani Israa'iil sida la socotaan oo hadii ay ku samadiidina maadaama ay ka soo jeeday hooyadiis dhankaas isagana waa loo diray laakiin ma arkaysid aayad kamid ah Quraanka ama xaraf wax maldahan xitaa sarbeeb sheegayso in maalin uu Nabiga Ciisa alayhi salaam oo reer bani Israa'iil ku yiri qoomkayga ma jirto hatta sarbeeb ma jirto arrinkaas waxaa daliil u ah Nabiga Ciisa alayhi salaam wuxuu dhigi jiray reer bani Israa'iil waxaana daliil u ah aayadaha Quraanka ee Ilaahay uu ku yiri subhanahu wa ta'ala وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم وسورة المائدة كجرت آيات 2 ka sidoo kale aayad kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku leeyahay وقال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم وفي سورة الصف ku jirto marka hadii aan aragnay intaas oo daliil ah oo muujinaysa in Nabiga Muusa alayhi salaam Nabiga Ciisa aan iraahdo inuusan wax qoom lahayn arintaas waxa ka sii cajiibsan kuma jirto hooyadiis arrinkaas qoom bay lahayd hooyadiis waxaana daliil u ah markii ay ureysatay oo ay si kama ku dhashay dadkeedana ay ula tagtay Ilaahay soo ka warramay wuxuu yiri fa'atad bihi qawmuha tahmiluhu qalu ya maryamu laqad ji'ta shay'an fariyan ayadaas waxay daliil u tahay inay qoom lahayd hooyadiis uu yahay qofka qoomka leen isaga kaligiis hal aayad oo waxaa jirta dadka qaar ay ka shakin karaan oo markii dadka tafsiirka aan aqoonin laga yaabo inay ka shakiyaan dhici karto aayadaas oo dhehaysa walama duriba ibn maryam mathalan idha qawmuka minhum yasuddun oo fi suuratu zukhruf ku jirto aayadaasna kama hadlaysa Nabiga Ciisa alayhi salaam ee waxay ka hadlaysaa qawmu Muhammad alayhi afdalu salatu wassalaam oo nabigeena Muhammad alayhi salaam dadkiisa ay la hadlaysaa oo markaan u soo qaadanay tusaalo anugii ina Maryama aha diidmadii ay diidan inkirin bayna ka hadlaysaa wax shaqo kuma lahan wax ku saabsan hadii ay ku samadiidina mawduuca arrinkaas ku saabsan waxaa la mid ah Nabiga Ibrahim alayhi salaam markii uu la hadlay qoomkiisa qoom buu lahaa dad qoomkeygii uu toos u dhigi jiray because maxaa yeelay Nabiga Ibrahim alayhi salaam qoomka wuxuu ka dhaxlay aabihiis Azar maadaama uu dhalay qoomkii Azarna reerkiisa ay ahaayeen oo reer iyo dad abtir ay ku lahayn marka halkan waxaan ka baranaynaa oo aan ku arkaynaa Quraanka inuu ilaalinayo isirka iyo nasabka iyo abtirka qofka iyadoo loo tirin karin qofka magac uusan lahayn qabiil uusan ka tirsaneen jufo uusan ku jirin laguma dari karo qofka hatta beel gaara oo aan ahayn jufadaada ma sheegin karto waa mamnuuc waan khalad because Nabiga Ciisa alayhi salaam baa tirsan lahaa reer uusan ahayn sababta maxay tahay marka Nabiga Ciisa alayhi salaam wax reer ma lahayn because aaba ma lahayn Nabiga Ciisa Ilaahay mucjiso subhanahu wa ta'ala oo soo diray buu ahaa
uu u soo diray adduunyada aabba la-aan baana la abuuray uu dhashay waxyaabaha mucjisada uu lahaa waxaa ka mid ah inuu dadka dhintay nooleyn jiray waxaa ka mid ahayd inuu dadka xanuunsan indhaha dila guusama diidine u daaweyn jiray u reesan jireen oo indhihiisa usoo laaban jireen araggiisa qofka usoo laaban jireen waxaa lamid ah barista waxyaaba kale shimbiraha intuu jarjaro isku dara kadib dib usoo celin karay waxaasoo dhan macnaha mucjisaadka ilaahay uu siiyey nabilahi ciisa calayhi salaam bay ahaayeen marka haddii marka la yiraahdo dadkan muslimiinta aan ahayn ee masiixiyada inta badan sheegta masiixiyana ma ahe diintii hore ee masiixiyada kristanka la bedelay ku dhaqmo waxyaabaa ku doodaan waxaa ka mid ah maadaama uusan aabba lahayn inay haddii ilahay ku sama diidin sidaas aabiis uu ilaahay yahay maya subxaana allahi alwaaxid alqahaar ilaahay wuu awoodaa qof inuu aabba la-aan oo dhaliyo oo abuuro oo u dhasho aan ka wadaa in bini aadamku aabba la-aan dhalan karo ilaahay wuu awoodaa waxba lama ah waxaa lamid ah nabilahi aadam calayhi salaam nabilahi aadam calayhi salaam nabi ciise aabbalaan buu dhashay laakiin nabiyullaahi aadam calayhi salaam hooyo aabbalaan baa la abuuray isaga wuuba kasii daran yahayba marka ilaahayna wuu nooga warramay inay labadoodaba marka tusaale ay u tahay mathal haddii nabiyullahi ciise aad la yaaban tahay nabi aadamna waa inaad la yaabto sidee lagu abuuray nabi aadam calayhi salaam aabbe iyo hooyo la-aan sidee lagu abuuray haddii marka su-aashaas aad ka jawaabtid jawaabta hadaad hesho waxaad sidoo kale jawaab u helaysaa in nabiyullaahi ciise calayhi salaam ilaahayna uu awoodo inuu abuuro qof aabbalaan inuu abuurana inay kusoo baxayso ilaahayna wuu nooga warramay labadoodaba wuu xiriiriyey aayadda qur-aanka dhageysa waxaana daliil u ah ina mathala ciisa cinda allahi ka mathali aadama khalaqahu min turaab uma qaala lahu kun fayakuun fi suuratu ali cimraan ay ku jirtaa waana aayadda 59 marka calaa kullin isku soo wada dub ilaahi subxaana watacaala wuxuu awoodaa inuu wax walba abuuro aabbalaan wax walbana ehaysiiyo kun inuu dhihi karo kadibna fayakuun ay noqonayaan amarka ilaahay bayna alkaaf wanuun inuu ku jiro marka calaa kullin isirka iyo nasabka iyo abtirku waa wax muhiim u ah jiritaanka aadanaha magacaaga iyo meeshaad ka soo jeedo qofka lama bedeli karo magaca aabihiis iyo abtirka meesha uu ka soo jeedo aabihiis ayaa lagu magacaabi karaa inta badan waxaa dhacda soomaalida gudaheeda oo dambigooda la dhaafay gabdhaheena qaar ay sameeyaan gabar baa nin guursanayso markay guursato kadibna haddii ilaahay ku sabadeedna waxaa laga yaabaa inay in muddo isqabeen oo bil ama uur 2 bil ama bil iyadoo leh ay kala tagaan ninkii isla markiina marka ay kala tagaan ninka ma oga kadib intay ciido tirsan lahaydna ay ogaatay inay uur leedahay iyadoo ciidadeeda dhammaanin maadaama qofka uur kale ciidadiisa ay ku dhammaatay inuu waxa calooshiisa ku jiro dhalo ciidada iyadoon dhammaysanin inay dhaqsan nin kale ku guurso iyadoo qarinaysa marka isirkaas waa arrin khatar ah oo walaa yaktumna fi arxaamihinna maa khalaqa allahu fi arxaamihinna aayad qur-aan waaye lama ogola gabadhu inay isirka abtirka ilmaheeda qariso waana arrin khatar ah hadhow waxaa la mid ah dumarka korsada caruurta aabba la-aanta ama aabbahood dhintay ama intuu furay kala tageen oo ku dayacay inay nin kale iska guursato ninkaasna abtirkiisa la siiyo gabdhaha inta badan ugu badan gabdhaha yaryarka badan lagu sameeyaa wiilasha ma ogi waxa lagu diidayo abtirkooda loo ilaaliyo ma sheegi kari marka gabar baa marka dhalayso gabar kale gabadhii muddo kadib way qaangaaraysaa nin baa guursanaya waxaa laga yaabaa inay magacii aabihii sidato oo lagu guuriyo oo lagu meheriyo arrintaasoo qalada oo gardarra oo dulmi ah mana ansaxaya meherkaas haddii gabadha aabaheed loogu magac dari waayo maxaa ilaahi subxana wataala qur-aanka wuxuu ku leeyahay udcuuhum liaabaa'ihim huwa aqsadu cinda allahi fain lam taclamuu aabaahum fi ikhwaanikum fi diin ilmaha sharci darrada ku dhashaa lamida ilmaha sharci darrada magac lama siin karo magac labaad magacooda lama raacin karo haddii cali la dhaho cali la dhaha xasan haddii la dhaho xasan baa la dhahaya xasan faarax geediya qaasin lama dhihi karo waa qalad marka insha allahu tacaala maadaama ilaahay subxaanahu watacaala uu 1400 sano ka warramay isirka iyo nasabka soo u dhooray marka adiga inaad wax bedelaysid oo aad wax kale cusub meesha soo kordhinaysid waa qalad dadku waa inay ku qancaan diinta ilaahay sida ay u samaysan tahay maxaa yeelay ilaahay subxana wataala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu an yakuuna lahum alkhiyara marka waa gardaro inaad adiga qof muslima tahay oo haddana aadan ku qanacsanayn sidii diinta iyo nidaamka iyo mawaadi'da qawaaniinta xeerarka u degan diinta inaadan raacaynin waa gardaro waa wax lala yaabo ama isaga bax diinta ama si nabada ugu dhaqan waxaan aad macnaha qaybna beeninaysaan nu'minu bibacdi wa nakfuru bibacdin wax la yirahdo ma jiraan jannadana ku geli maysid xataa haddaad muslim tahay oo islaamnimo lama dhaho waxaas diintu waa inay mutakaamil waa wax dhammaystiran waa shareeco waa nidaam degan oo nololeed oo dhammaystiran sideeda u raac إن شاء الله تعالى سنقبلنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.